waxaan halkan ka salaamayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa. marka aad maqasho ha noolaato wax maskaxdaada ku soo degdegaysa ha noolaato maxay u taagan tahay, ha noolaato ujeedadoodu maxay tahay, ha noolaato maxay higsanaysaa, ha noolaato sidee rabtaa inay ujeedooyinkaa ku gaarto. waxaas oo dhan ayaa maskaxdaada ku soo degdegaya. dabcan waa su'aalaad xaq u leedahay inaad isweydiiso. ha noolaato waxay u taagan tahay soo celinta qarannimadii, sharaftii, midnimadii iyo walaaltinimadii ummadda Soomaaliyeed. ha noolaato waxay u taagan tahay noolaynta taariikhdii, dhaqankii, hiddihii iyo soo jireenkii ay ummaddani lahayd. ha noolaato waxay u taagan tahay geedkii ay harsan lahaayeen jiilka maanta iyo jiilka berri. ha noolaato waa shumacii ifinayay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ee maanta mugdiga ku jiro. ujeedooyinka ha noolaato waa ujeedooyin cadcad, waa 5 ujeedo oo la taaban karo, kuwaasoo kala ah: 1. jirida u saarista 5 cadow ee waaweyn ee lidka ku ah jiritaanka ummaddan, ee ay ka mid tahay colaadda, ay ka mid tahay qabiilka, ee uu ka mid yahay qaadka, ee uu ka mid tahay jahliga iyo gaajada. ha noolaato waxay rabtaa inay soo celiso walaaltinimadii iyo isjacaylkii iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed. ujeeddada ha noolaato waa kobcinta dhaqanka, diinta iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed. ujeeddada ha noolaato waa abuurista bulsho hodana, qaran haybad leh iyo hanaan dowladnimo oo waara. sidee lagu gaari karayaa ujeedooyinkan quruxda badan? ujeedooyinkan quruxda badan waxaa lagu gaari karayaa marka adiga iyo anigu aan ka wada shaqayno si aan u helno qaran, ummad, shacab iyo dal cizi iyo karaamo ku leh sidii uu shalayba ugu lahaa adduunka. haddii aynaan ka wada shaqayn, mugdigan baa jiraya. haddii aan ka wada shaqaynana waynu gaari karnaa ujeedooyinkan cadcad. waa ujeedooyin nabadeed, waddo nabadeed baan qaadaynaa, waddadaa nabadeed baan rabnaa inaan ku gaadhno, laakiin qof, 2, 3 ma gaari karaan haddii aynaan wada shaqayn. ha noolaato waxay u baahan tahay qof kasta oo Soomaaliyeed, waxay u baahan tahay xoog, waxay u baahan tahay midnimo iyo in gacmaha la isqabsado si looga midho dhaliyo in dalkii Soomaaliya lagu soo celiyo karaamadiisii. marka aanu taariikhdii dib u raacno ee aan dib u fiirino sidii ay ku gaareen halgankii adkaa, leegadii ama iswaayaashii ee ay ku hanteen calanka iyo dalka iyo qaranka, marka aan dib u fiirino shucuubta adduunku sida ay qaramada maanta ay haystaan ay ku gaareen, sidaasaynu ku gaaraynaa. nabad baynu ku gaaraynaa, walaaltinimaynu ku gaaraynaa, iskaashi baynu ku gaaraynaa. waa saas sida aynu wax ku noqon karnaa, waa sida aynu wax ku yeelan karnaa, waa sidaa marka aynu iskarabsanno, ee gacmaha isqabsanno, ee walaaltinimowno ayaynu ujeedooyinkan gaari karnaa. ha noolaato waxay u baahan tahay qof kasta oo Soomaaliyeed, waxay u baahan tahay xoog, waxay u baahan tahay midnimo iyo in gacmaha la isqabsado si looga midho dhaliyo in dalkii Soomaaliya lagu soo celiyo karaamadiisii.